قالت علماءها شيخاش ما شيخاش يكون كتب حوارك كهذا ما سياسة يموسك رقصي كوي عادي جها علماء كتاب يقول فرين أنا عام تدور مجاده سويس الرامبو تقول عايت ولا حدا غب أديس أبوه تقول جوري ولا غلب حي لح ساعة بإثيوبيا كويست مصر بتقول شجود وقصة اسبتال بكتيرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتوا وعانوا ونحسن وبرنامج كان يفتيمينتا أو أنا سكون دول تاجي إنما أنت حسن أيح حسن منافق أو اسبتال مصر كتيرة والله قرينا يوم والله قرينا يا لكن تدور مجاددي علماء الشيخ خالد iyo waxa isu raacay wuxuu yiri ninkii jiray meelaan rabay roob ma igu helay bal hadda eegay isagoo markii horeba hooyooyin masaakiina dumar ciyaal maxas u dhan walba u baabiyay buu culimadii quraan ruugi shiikhaaleed oo waliba ma aha shiikhaashan muusiga iyo kuwan siyaasadda galay iyo maydhmay maahe ribti shiikhaaleed oo carwadii qaranka halka ilaahooda ku sugayo digriga ku haya waafka uga gala waxaan ka codsanaya barnaamijkoodu ku soo gaar si shar garay hadii salaadu ku joogtana u soo tukabadayna gelin hadii kale nabiga ku sallay allahumma salli ala sayyidina muhammad barnaamijku like meel fog bigaarsiisa like ta barnaamijka ku bool warkaasaan idinka daba geynaya iyo xasan munaafiq halku ku dambeeyay bal hadeegay wuxuu yiri liqliqa wuxuu lahayn la daabtaa waa ku laqayoon iska keen warkada warwaa dumar warwaa ciyaal warwaa agoon warwaa rajo warwaa oday miskiina warwaa ragii dalka u soo shaqeeyay warwaa ciidankii may ana leh waa xaraasha ariya waa xaraasha wuxuu u xaraashay iyo wuxuu gadanayay oo gabadhiisa iyo wiilkiisa waxa yaabay Yurubiyaanki baa yaabay Switzerland lacagta Mareykanku bank saaray waxa ku qoran gabadhiisa baa ku qoran daada gabadhiisa u qoran 30 jir bay ka yartahay waxa la yiri gabadhaada 20 milyan baa ku qoran xagee ka keentay xasano wiilkaaga 30 milyan baa ku qoran xagu ka keenay xasan munaafiq magaaladii muqdisho ahayd ilaa meel kale kama taliye buu sida aboorka harka saa kor iyo hoos baa u cunay wadaba ma arki karaba wadaba musujuudaan baa la oran jiray baqaad baa lagu haystaa reebel baqaad ku haystaa waa la soo dhaafay musujuudaan hargeyso bari dhaxaas qeyli jirtay ma karaysaa waana wixii hore waa u daawa ka dhacday baqaad banaanba meel dawladi waalahaan jirtay baladeegay ilaa uu qabuurihii dul tagay halka iyadoo ay baashu marasho iska gurubsanayo dadkii ooyayaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waa dul badane waa dulqaad badane waa naxariis badane baladeegay saas loo eegay hooyo kooysi gabadh miskiina oo saaka ka lahday oo iskuul aaday oo hooyadii aabaheed iskuulka ka bixinayaan oo laga yaabo inay agoon tahay oo islaanta dhashay waxa weeye bijiye ama shushumo ama caano suuq ku iibiso ama ay hilibka qasho oo buul yar iyo sandaqad yar iyo wax baac weyne iyo baac yar dhiyada meel ka dhisatay oo gabadheedii iskuul u aaday gabadhii waa duhurkii soo noqotay iyadoo gaajaysan waa qalin leef waa ardayad baladeegi aan wali qaan gaarin gurigoodii waxay garan weyday daleel bay u timid daleel balcadde ninkii maray baa garanaya karamaan baan ku eegay balcadday timi meel gelgelina gurigoodii bay gaajana u haysaa baladeegi aad garanaysaa marmay gabadha sawirkeeda sarjooga inay ka dhacdo waxay ugu sigato ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dul badanay waa u daayay حسنو باللي وركتشو ورصون نقماي وحيري سيد عبد الله حسن شوق وحانو صايري دوغاك تشلبوتيناي شوق وحانو صايري دوغاك تشلبوتينايا wuxuu socdaba wuxuu u galay culimadii shiikhaaleed oo waliba shiikhashi quraan ruuga ahayd todoba magaaday u mareen an'am baan kuribe ka bilaabeen oo yaasiin ku xijiyeen kitaabka u fureen baan kuri quraan ruug baan kuri culimadii shiikhaaleed saasay u rogeen baan an'am bay ku bilaabeen maxaa dhacay hadaba horta waxaad ilaa daawataan culimadii oo waxay habaarayaan isaga iska daayay tafiirtiisa saddexaad baan kuri inaanay liibaanin bay ilaahay ka baryayaan bal hadeegi حسن شاقو
waxaan ku leeyahay kitaabka hadda aan baan akhriyahayaa ilaahay waxaan ka baranay cadaabkiisa jadiidka gabdhahooda iyo wiilashooda iyo naagaha dhaqama ilaahayow cadam ka dhig ilaahu cadam ka dhig ilaahu baabi ilaahayow adaan ku hortan tafiirtiisa saddexaad bay baan ku waa ugu duuduubeen maxaa dhacay haddaba waa tuu cararay adiis tegey markuu odayaashii barakiciyey buu adiis aaday ma ogtihiin xasan munaafiq guriga hoteelka la geeyey 12 habeenimo inta loogu soo dhacay lagala baxay sababtoo ah cid allaaliya cid la socotay haba yaraatay xitaa xaaskii uu qabay xitaa ma wadan waxaan ku yiri waa dusay habeen madow buu intuu boorsadiisa xirxirtay dadkii oo jiifa waagii oo ambriin buu diyaarad ku dhacay adiis buu goday waaga 7 subaxna laga wareyso waa adiis dhex taagan habeenkii uu hotel tagay markaasoo ilaa waa waxa iimaan kala afoorqi la hadal aftaxsiisi la hadal Ethiopia oo dhageysanaya qolka ku dhageysanay raadaalka waa ugu xiran 12 habeenna la baxay 5 subaxna waa la keenay 6 saac baa la maqlaa maalinkuu baxay uu baaqday wixii lagu soo sameeyay Ilaahay baa garanaya laakiin sirdoonka niis la yiraahdo Ethiopian alambaxa god bay la galeen waa ku bilaabatay 7 magaada la yiraahdo baashan ma qosasho 7 magaado qof aad dulmiday haduu 7 magaado ku maro soo noqon maysid baan halkaas uga baday Switzerland buu tagay bangigii buu kaarka geliyay saa dhiiq meel walba hadda Switzerland 7 bangi buu maray 7 bangiyada caadiga markuu tagay xal lacagtan 260 milyan baan baa saaran baan afka qalaad waxa niman tahay lacagtan waa la fris garay waa lacag xaniman maya gabadhaada 20 milyan ku qoran xaga keentay bali wiilkaaduna 30 milyan baa ku qoran islaantaada 40 milyan baa ku qoran wiilkaada abtigu u tahay 30 milyan baa ku qoran dad kale xagee xoolaha ka keenay buufis gab 7 bangi markuu leeyahay shaydaanka iska naar waa markuu hotelka degayo 8 koob iyo 80,000 oo dollar buu ala habeen ku seexanay culimada quraan ruuga ah ee masaakiinta guriyahoodu ka soo saar waxay bedeshay isbitaal baa ku jira jeegadu goosta jeegada xasan munaafiq isbitaal buu ku jira waa la qarinaya ilaa ay hadda meel uu ka dhawaaqay ma aragteen meel uu ka talactalac leeyahay ma aragteen maalinkuu sawirka la soo galay aftaxsiisi oo waxa weeye buuga weyn ee wixii la doono lagu qortay saldhiga Masar la siiyay Masar saldhig buu siiyay military Ethiopia wuxuu siiyay saldhig military baladeey qoladii Turkiga wuxuu siiyay saldhig military Imaaraadka wuxuu siiyay saldhig military waa adduunyo aan is arki karin oo isu muuqan karin sheegadu goostay an'am ياسين وأرجن إلهي سبحانه وتعالى أن أدون كيس أول الدلمي أو ولي قرآن روج قرآن روج علماء أو كعب لأرانا يو بوني هبل معناها بوني ده فهم ويدان صومالي بعتينه تذكرنا ده بوني فهمي ميسانه والشيخ هبل ساسو فهم سنه شيخ هبل شن او لح او شيخ او وداد او بونيه وافكا كغل تدوم مغادي امرين اسبيتالكاس ku jira xasan munaafiq wayala waqachaajista alka jeegada eega dhugdhugleyda buu goostay dhulku hirdiyay baan ku yiri dhulka buu hirdi ka soo jaray عيرنيكي رحوين اللي قبته إرنا مروجنا دولنا مروجنا بول حسن إرنا ما تشوجو دولنا ما تشوجو تاسو يلا حسابتي الله نوا خدم بيسا تي الله أنا ميل بيوت الله تي عقوبتي وكجلي مساكين تيضت كالدنيا تاي وحوي حنتدو دي نوال بالله نوال با الدون كويحي كي ماذا أفكو دكتور حنركي يسوي حلي gobolka banaadir xaqiisa la cuna waxa lagu soo darsaday Puntland buu haystaa kursiga uu maanta ku fadhiyo ee uu waxa weeye ayaan darrada kursigaas maanta haysata maanta xasan munaafiq ku fadhiyo
saddex kun oo wiil oo reer Puntland baa nagaga maqan kursiga ma aragtaan yalla waxa maanta filla qabiyaala yalla ee xasan munaafiq filladii ummadda Soomaaliyeed filla qabiyaala u bedelay saddex kun oo wiil oo reer Puntland baa nagaga maqan afartii sane Cabdullaahi Yuusuf joogay markuu madaxtooyada baneynayay bil kasta 300,000 oo dollar baa dekada boosas laga qaadi jiray bil kasta afartii sane Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariisto uu fadhiyay naf iyo maal waxaanu ku bixinay hadaanu reer Puntland nahay waxaanu ku bixinay ummadda Soomaaliyeed siday u heli lahayd meel looga taliyo meel ummadda Soomaaliyeed looga taliyo kursi u yaallo inay mid daalina fariisiyaan iyo inay mid siciima fariisiyaan go'aanka iyaga leh laakiin waxaanu ku dadaalnay in ummadda Soomaaliyeed hesho madaxtooyadoodii iyo kursigoodii meel looga arrimiyo ameen meesha maanta xasan munaafiq leeyay Puntland waxay nagu darsatay cashuurta banaadir la cuna 1 bilyan oo dollar ba sanad kasta beesha caalamku nagu qorataa iyo qaramada midoobay iyo banka adduunka baladeegi halka bilyamada Soomaaliyeed ka dhacaysa Muqdisho ay tagtaa xasan munaafiq iyo wax la midna jeebkiisa ku dhacda umadina wuxuu u sheegay oo yiri xaqiina la cuna gobolka banaadir cashuurtiisa la cuna Muqdisho cashuurteeda la cuna wuxuu yiri mahmaah Soomaaliyeed baa waxtaada druwayo ina saamajiidiyo sanqartirasho kala daa waa mahmaah Soomaaliyeed dadkii hore ku mahmaahi jiray druwayo ina saamajiidiyo sanqartirasho kala daa waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed waa madaxtooyadii baa ku taal wasaaradihii baa yaal hantida ummadda dhan baa taala eegay iyo Muqdisho uu kaale gobolka banaadir waay idinku labadaas qabadsiya Soomaaliya idinkaan idin dhiibay in Cabdishakuur baa maalin wuxuu yiri war xishooda war waxaan xasan munaafiqiin joogay waxba kama jiraan war dadka xaqooda idinka cuna buu yiri Muqdisho xaq ummadda Soomaaliyeed cunta wax waliba Muqdisho yaalaan wasaaradda caafimaad wasaaradda waxbarashada wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta qaranka wasaaradda beerista iyo daaqa wasaaradda kalluumaysiga dekadaha iyo naqnaqa dibudajinta musiibooyinka waxa soo qamshaxa soo Muqdisho ma yaalaan soo wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa ma bilyan dollar ba sanad walba waxa weeye ummadda Soomaaliyeed lagu qoray wiilka maanta ka dagaalamaya waxa weeye qandala iyo muqarasay ka dagaalamaya cajeel ka dagaalamaya eegay ee dalkii ee dadka difaacaya xaqiisi Muqdisho yaala dagaalka maanta Puntland ka socda ee waxa weeye aan ku kaliyeysanay ee halka naf iyo maal iyo ragba aan ku bixinayno xasan munaafiq haduu qayb ka yahay ka waran inuu ololiyo qanu Muuse lama yaabayo argixisada isna halka joogtaan lama yaabayo niman waxa weeye daalimiin oo dhiig ummadda Soomaaliyeed iyo dadka masaakiinta laayay oo waxa weeye iimaankii beerweyn la yaamayo oo reernimo ummadii ku kaxaysay balika madaxweynaha ummadda wallahi Muuse Juudaan ba dhaama Muuse Juudaan ba aqli dhaama xasan munaafiq يقول لي أريا بنادر واي حاجة بنادر على عنا ما كسر دنيا أنت واحد نجح اللي يقول ذي بيحكوا يعني بنادر كلية عشرتين على عنا هيتها بوزع على بس وقادوي هرجيس اللي هو كلمة أنت كذا ما كنت تدو عقلي حسن منافق ومفوي إيجي وحنا نقضي دقيق لقوشوي بس كحميش كمان دقيق ما كجتها لماذا إنه هالكاس كلي حسن واجفا حسن واجفا علماء الشيخ خالد بن ضنط كدا أنا ولا ورشوك وركدا ورسيد مودي ما ورقلا ورلما تهبطوا ورشيخان لما تهبطوا ورهوي تشوك وركتشوك ورهوي تشوك أديدي ويا ما أنت هانتنا ما هيو دقالنا ما هيو مقع ما هيو سمعة ما هيو شرف ما هيو عافي ما عندنا هالكاس وكتشوكا تي الله نوض بيسا حلكينا سجال بلو مسلسلات waxaan dhameyn baa waharay askariga gafur culus taay waxa weey Afrikaanka $2,500 buu qaataa wiilka askariga ee Soomaaliyeed ee ciidanka ee habeenii maalin cadawga dalka mid dibadii mid gudaba ka difaacayana $150 mise $120 buu qaataa xasanna koob iyo $80,000 buu isaga iyo ciyaaladu adeerada iyo abtiyaasha waxa habeen walba ku saxaneen Switzerland maanta Masar buu joogaa isbitaalka Suudsa gabadha foorarta maanta xasan bay ku foorarta wajigiisa la qaranay waxa soo u maleynaya
إني يربض يحوليبين الله خلا شقيسانيا إلهي سبحانه وتعالى هدي أدل مدي أدون كيسا إلهي سبحانه وتعالى سير أفضل وإلهي كايا أرجونية مساري تجيب اللي وشو ديب على مير بلول ديب تشجع دوبا قصتها أكع الخير يا بركة هذه رجالية عادنا وادي سلام يا برنامج كاسي شرقية